ciidamada Ruushku waxay galeen gudaha magaalada caasimadda ah ee Kiev ee dalka Ukraine kadib 24 saacadood markii ay soo qaadeen duulaan ballaaran oo cirka iyo dhulkaba leh oo ka dhan ah dalkaas. qaybaha bari ee magaalada caasimadda ah ayay hadda la wareegeen ciidamada Ruushku iyadoo halkaas laga maqlayay dhawaqa qaraxyo xooggan, duqeynta diyaaradaha Ruushka iyo hubka artilleriga loo yaqaano ay isticmaalayaan ciidamada lugta ee socodka ka soo bilaabay xadka bari ee dalkaasi uu la wadaago Ruushka. waxa la arkayay gawaadhida gaashaaman ee Ruushka oo ku sugan qaybaha bari ee Kiev iyagoo ku sii siqaya dhanka bartamaha magaalada. waxaana warkan xaqiijisay dawladda Ukraine. madaxweyne Zelensky wuxuu sheegay in Ruushku uu isaga beegsanayo lamana oga goobta uu ku sugan yahay hadda. dawladda Ukraine waxay shacabka magaalada ugu baaqday inay difaacaan caasimadooda isla markaana isticmaalaan bambooyinka gacanta laga tuuro ee shidaalka laga farsameeyo. khasaaraha waxa lagu sheegay 25 qof oo dhimasho ah iyo 102 kale oo dhaawac ah sida ay ku warantay qaramada midoobay, balse ma jirto xog ururin sax ah oo muujinaysa tirada dhabta ah ee khasaaraha jira. dawladda Ukraine waxay dhankeeda sheegaysaa dad 200 kor u dhaafaya oo shacab ah oo ciidamada Ruushku ay dileen, balse lama xaqiijin karo ilaa hadda. madaxweynaha Ukraine wuxuu ugu baaqay Ingiriiska iyo saaxiibada kale ee dalkiisu uu lahaa inay wax ka qabtaan Ruushka oo ay gacan taageero u muujiyaan, balse baaqa madaxweyne Zelensky ayaa u muuqda hal bacaad lagu lisay iyadoo reer galbeedku ay si cad uga gaabsadeen in ciidamadoodu ay qayb ka noqdaan dagaalkan kadib Ruushka oo la ogaaday in Ukraine ay uga dhigan tahay khadcas oo uu ka xigo dagaal kasta, iyo Ukraine oo aan ka mid ahayn gaashaanbuurta NATO oo ah urur military oo badi wadamada reer galbeedku ay ku midaysan yihiin. ilaa 23 askari oo ka mid ah ciidamada badda Ukraine oo diiday inay isu dhiibaan ciidamada Ruushka ayaa qudha laga jaray kadib maraakiibta Ruushka oo dhanka badda ka soo galay Ukraine. duulaanka Ruushka waxa qayb ka ah ciidamo kor u dhaafaya 150,000 oo askari oo ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee Ruushka, waana baaxad ciidan oo ay adag tahay inuu dal sida Ukraine ahi iska caabiyo. saaxiibada Ukraine kaliya waxay dirayaan baaqiyo joogto ah iyo cunaqabatayn ay Ruushka saareen, balse khubarada ayaa qabta in Ruushka ay arrintani u saamaxayso mustaqbalka isfidin kale oo uu ku sameeyo wadamada aan qaybta ka ahayn xulafada NATO ee bariga Yurub. inkastoo cunaqabataynada reer galbeedku ay hoos u dhac baaxad ku keenayaan dhaqaalaha dalka Ruushka. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka oo dhacdooyinka ugu dambeeyay ka hadlay wuxuu sheegay in Ukraine ay hadda siinayaan chance ay ku go'aansadaan mustaqbalkooda iyo masiirkooda dambe. wuxuu u sheegay in haddii ay ka fogaanayaan reer galbeedka ay weli fursad haystaan, balse haddii ay doortaan inay qayb ka noqdaan NATO isla markaana ciidamada reer galbeedku yimaadaan dalkaas ay ka dhigan tahay duulaan Ruushka lagu soo qaaday. waa sida uu hadalka u dhigay. weerarkan cusub ee Kiev uu ku qabsaday Ruushku wuxuu caddeyn u yahay in saacadaha soo socda la filayo in dhammaan dalka Ukraine uu gacanta u galo dawladda Ruushka ee madaxweyne Vladimir Putin. lamana oga tallaabada xigta ee Moscow ay qaadi doonto. Ukraine ma waxay ka dhisi doontaa dawlad ay rabto oo sida ay jeceshahay u dhaqantaa sida dalka Belarus? ma dalweynaha Ruushka ayaa lagu dari doonaa inta afti laga qaado dadka sida ku dhacday gobolkii Crimea, mise waxay dhibane u sii ahaan doonaan ciidamada Ruushka oo goodoon ayay geli doonaan? waa su'aalo jawaabahooda la ogaan doono toddobaadada iyo bilaha soo socda.